hay-adda dhowrista tayada Somaliland ayaa magaalada Berbera ku qabatay barnaamij lagu daahfurayo fulinta iyo baadhista shaybaadhida cuntooyinka iyo dawooyinka dalka soo galaya ama ka baxaya, waxaana munaasabad loo qabtay daahfurka barnaamijkaasi ka soo qayb galay badiba wakiilada ganacsiyada kala duwan ee dalka Somaliland iyo laamaha kala duwan ee dawladda ay khusayso baadhista iyo fulinta mashruucaasi iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda hay'adaasi oo horkacaya gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada ee Somaliland. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay isduwaha hay'adaasi ee gobolka Saaxil iyo agaasimo waaxidyo kala duwan oo ka socday hay'adaasi waxaanay faahfaahin ka bixiyeen xogta daahfurka ee barnaamijkaasi. lacagta laga qaadayo konteenarada iyo alaabta ay guraangurka iyo doonyaha iyo maraakiibta waxa isdul taagi doona aad ugu nuxnuxsan doona markay gaadho Axmed Maxamed Habane sidaad wada ogtihiin laba baadhisood baa jira. mid waxa la yiraahdaa mid aragti lagu baadho wax oo visual inspection baa la yiraahdaa, midna waxa la yiraahdaa test baa la yiraahdaa lab baa wax lagu baadho. labadaba laakiin guud ahaan waxa la isku yiraahdaa baadhis, haddana way kala duwan yihiin. mid qofkii qalab ma haysto aragti wax ku baadhay. tan haddaba maanta aan ka hadlayna inspection baa la yiraahdaa. ta inspection kuwa ta uu qofku aragtida wax ku baadho ee aan inta alaabta hadii la qaado lab la gelinin qofku sidee buu aragti wax ugu baadhi karaa? ma ogaan karaa shaygu inuu khaldan yahay iyo in kale aragti ma ku ogaan kartaa? baadhuhu shaqadaas inoo qaabilsan waana lagu ogaan karaa. marar aan lagu ogaan karin baa jira, markaa waxaa loo baahdaa baadhista nooca loo yaqaano testingka ee labka inuu wax ku arko loogu talagalay. markaa guud ahaan sharaxaada labada baadhisood saasay u kala duwan yihiin. midna waa aragtida la yiraahdaa visual inspection waa ta lagu sameeyo dekada, midna waa ta labkan la inoo furayo shaybaadhka lagu sameyn doono testing baa la yiraahdaa. ugu dambeynna maamulka kastamka Berbera, gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada ee Somaliland iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda iyo faa'iidooyinka uu leeyahay daahfurka barnaamijkaasi. halka ujeedo ee aynu maanta leenahay aan ku soo celcelinayaa mar koobaad mar labaad waxa weeyaan war sidii wadankeena iyo caruurteena iyo xaafideenu ay u heli lahaayeen dawo fiican, raashin fiican oo tayadooda iyo maxaa ahayday la hubiyo wax walba haynu ka gacan siino hay'adda dhowrista tayada oo xeer 68/2014 ku aasaasan waajibaadkeeguna uu yahay gudashada iyo ilaalinta xeerka gudashada iyo ilaalinta dhowrista tayada. 3 sanadood ka bacdi anagoo ka duulayna waajibaadkayaga iyo shaqadayada uu qaranku nagu waajibinayo, kulankan maanta waxaan ku daahfuraynaa fulintii hawsha hay'adda tayada iyo xoojintii. waxaan aad uga mahadcelinaynaa cid kasta oo nala shaqeysa, wasaaradda maaliyadda koow ka tahay, ciidanka tubatariyada ama ciidanka booliiskuna uu nala shaqeeyo, iyo dabcan ganacsatada uu naga dhaxeeyo xiriirku. intaas oo dhan la soo shaqeynaysay hay'adda tayada inagoo hawsheenu badankii ay u badnayd wax la yiraahdo visual inspection. ilaahay mahadii maanta shaybaadhkii hubinta tayada iyo dawadu waa diyaar. Berbera ka aasaasan yahay, maalgelin baa qaranku aad u badan buu sameeyay, shaqaale xirfad leh oo muwaadiniin iyo ajnabi ah inoo jooga. qalabkii ugu dambeeyay ee lagu baarayo alaabaha kala duwan khaasatan dawooyinka iyo cuntada ayaa inoo yaala. hirgelintii iyo socodsiintiina waa mid dhammaanteed inaga wada dhaxaysa. ujeedada laga leeyahay ee hay'adan loo abuuray waxa weeye inay dhammaan bulshadu inay hesho wax fayow, alaab agab fayow oo caafimaad qaba oo tayo leh. waan la soconaayo waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo kala duwan oo ganacsatadu ay keento oo nooc walba leh. waxa weeyaan iyagu marka horeba xilisa saaraya dadkooda la jecel inay wax tayo leh u keenaan, dadkooda la jecel wax caafimaad qaba inay u keenaan. haddana dawladda ay uga mas'uula inay dadkii wixii ka sheegarayso si loo ogaado intaas oo shirkadood oo kala duwan oo meelo kala duwan ku yaala oo aan qaarna de la aqoonsay qaarna aan la aqoonsanay bay alaab ka imanaysaa ilaa iyo taska la mariyo oo la eego. wixii kuma kalsoonaan karna waa in la hubiyaa. hay'adda dhowrista tayada oo xil saaran. Cabdirashiid Cadare, MMTV, Berbera.